gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki Axmed Maxamuud Caateye oo khadka taleefanka igu warramay ayaa ugu horeyn waxaan weydiinay ujeedada kormeerkiisa shaqo uu ku soo marayo tuulooyinka hoos yimaada degmada Baki waraysigiina wuxuu u dhacay sida tan معلمين ما يجيبوا وبالكم غير كلمة لا بس في نفري ما يسوي حاضرين ما يفصل حين على القلبة سوق ساعة هذا كوريشي أقول هي حقيقي بالفلنتي على العسكري إيه تقول علي سهل وعيش حقيقي فلنتي تقولوا gudoomiye bal waxaad nooga warantaa dhinaca caafimaadka ee degmadaasi safarkii uu idinku soo maray wasiirka wasaaradda caafimaadka maxaad se ballanqaad dhow aad ka haysaan wasiirka kulankii aad la yeelateen caafimaadku dadkii waayo hawlaba aad u caafimaad qabaan laakiin dhulkani aad ugu daran tahay baan soo aragnay oo xalay waxaan la hadalay caafimaadka iyo ninka lagu yaabe oo meesha lagula fadhixon iyo carrawareen iyo dadkani aan laga helay baa jirto oo marakanacooyina looga geeyo weligood aga kaneecada meelo badan oo carriwar ka mid tahay warka dhibtu ka badan ka mid tahay oo aan weli la gaarsiinba marakanacooyinka iyo xataa daryeelka caafimaadka uu ku leeyahay imika laakiin NCH waa kala ka dhisay fadhixon marka marakanacooyinkaasaa u daran iyo kaneecadaas dadaadsay waxaan ugu sheegayaa inuu wasiirka iyo xitaa la socotay faraha badan inuu ay ballan qaadeen in la daadejin doono caafimaadka oo la gaarsiin doono oo shaqaalaha la kordhin doono imbalaasi la keeni doono waad ogtahay in kuwaasi nafarta degmada gobolku ay shirkudeen siminaar iyo aqoonsi-wadaarsi lagu qabtay arrinta xaalada lagula socodsiinayo 5 sano soo socda wixii la qabanayo oo xaaladii wasiirku kormeerkii wasiirka ka dhashay in ay rees ka socotay 7 sano waad la socotaa waan filayaa arrintaas markii anagu arshikaa raggii ka qaybgalay waan hayno degmadii loogu yeeray anagu degmadii u horeysay loo qabtay degmadii ugu horreeyay loo qabtay baan shirkaas markuu dhammaaday maanta uu xulmeyna waan baxay yani wax wanaagsan baan walaa kale tayo inka degmada kenya iyo degmada loo maanta loo xulmo waxaana la shaqaalihii shaqaynayay ee goobaha caafimaadka gudoomiye bal waxaad nooga warantaa khilaafkii adiga iyo golaha deegaanka idinka dhexeeyay halkuu marayaa arrintaasi adigu way iska dhamaatay dadku tabasho ma waayo xildhibaano wax tabaraya way jiraan habase yeeshee yani wada shaqayntu waa halkeedii waanu wada shaqaynaynaa sharciyaddu marka yani ay sax noqotana in la isbedelo waan ogolahay oo sharciyaddu ay noo soo dhamaystiranto uguna xeeran gudoomiye bal waxaad nooga warantaa howlaha aad ka wadaan dhinaca seerayaasha oo muran badan ka jiray muddooyinkii u dambeeyey horta waxa weeyaan wax 20 sano Somaliland sida soo jiray weeyaan oo waxaad ogtahay in degmooyinku ay sabab u yihiin baa dowladda buurta aroog ee boorma u dhawaadaan maanta degsilaano wax lagu leeyahay nibaaleegayso taasi waxaad moodaa in maayiradu sharciyeed marka horeba waxaan kuu sheegayaa arrintaas 3 sano oodashada iyo dhulboobku waa jiray anagu waxaan doonaynaa inaan wax ka qabano waxaad ogtahay inaan beri reer badan kusoo xidhiidhnay dadka in 1 milyan oo shilin la ganaaxay waraaqana laga furay seerayaal badan oo jiro dhul oodashaa la baabiyey dadka imika noogu dambeeya la doonaya in la baabiyana waxa weeyaan inta badan midda ka dhaxaysa waa halka ay talaabta ka bilaabatay oo Baki arrintaas meel waa sima noomasa runtii arrinta beeraha iyo dhuldaaqsimeedka waxaa ku shaqalay wasaaradda ummadda cilmiga iyo wasaaradda beeraha iyagaa samaynaya anaguna fulintaana yeelanaynaa weli nama soo gaarin annagaa kun waraaqood codsiyo warray inay noo soo gaarsiiyaan sharciyada kala xadaynaya amba xeerka kala xadaynta beeraha iyo dhuldaaqsimeedka waana sugaynaa waxaanan ku ballan qaadaynaa xeerkaas markuuna soo gaaro in sideeda uga fulay degmada gudoomiye maxaad tala u soo jeedinaysaa dadka reer Baki dadka Baki waxaan u soo jeedinayaa inay marka hore dhowraan deegaanka oo xaalada dhuxusha iyo doorashada ay ka waantoobaan maadaama xoolo laga toobadan yihiin dadku marka labaad waxaan leeyahay yani dadku inay amniga ilaaliyaan oo jaararka iyo xuduudaha la leeyahay degmooyinka kale iyo gobolada kale yani berdhowdu habeen bariga waxyar ka hadlaya in amniga la ilaaliyo waxaana leeyahay yani degmada in lala shaqeeyo ka codsanaya oo wax wanaagsan ummadda in loo qabtaa rabno gudoomiye bal waxaad noo sheegtaa howlaha idinku daran ee waqti xaadirkan aad rabtaan inaad wax ka qabataan xaalka oo dhuxusha dhowr iyo 10 jeer baan waraaqay wasaaradda horumarinta cilmiga hay'adda ku shaqalayna weeyaan dhulka iyo dhuxusha iyo waxaasoo anigu haddaan maanta kula degaan ahaan tallaabo qaasnaa oo wax ku dhisaan ama cid u dhaha waxaan soo shaqaynaan lahayn ba weeyaan laakiin amni shaqo ku leeyahay inaan guulisku daro cidda qabanaysa oo wasaaradda horumarinta cilmiga
dhageystayaal waxa inta inoogu dhamaaday waraysigii aanu la yeelanay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki Maxamed Bilbili Awdal Media magaalada Boorama.